qodobka ugu weyn haddii aan ku hormarno Djibouti oo ku guuleysatay orodka nus maratonga ee loo yaqaano sii maratonga ee ka dhacay sanad walba dalkan Jamhuuriyadda Djibouti Moomin Geele waa ninka maanta oo dhan reer Djibouti ay hadal hayaan Moomin Geele waxa uu keenay orodka ugu soo dhameeyay orodkaasi maanta ka dhacay dalkan Jamhuuriyadda Djibouti waxaana uu soo galay kaalinta ugu horeysa waa orodyahanka soo celiyay rajada reer Djibouti ee orodyahaninta reer Djibouti oo ugu dambeeyay orodyahankii ku guuleystay 1997kii ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Djibouti ayaa halkaasi u joogay munaasabada maanta iyo xubno ka tirsan xukuumadda dalkan Jamhuuriyadda Djibouti orodkaasi 20 kilomitir ee ka dhacsan walba Djibouti waxa isagu soo galay kaalinta labaad Zaad Khalid oo u dhashay dalka Morocco waxaana yimid kaalinta saddexaad wadanka Rwanda Gervais Hakizman kaalinta afraad waxa soo galay Suudaan Cibaadillah kaalinta shanaad waxa qaaday Stanley oo u dhashay wadanka Tanzania waa ninkii kal hore qaaday kaalinta hore oo isagu yimid maanta kaalinta shanaad orodyahaninta kale reer Djibouti iyaguna waxa ay qaar ayaa jiray kamid aha 10ka ugu horeysa ee orodkaasi ka dhacay maanta Jamhuuriyadda Djibouti dhammaan reer Djibouti yar iyo weyn ayaa isugu soo baxay fagaaraha gaar ahaan laamiyada kala duwan ee dalkan Jamhuuriyadda Djibouti taasi oo maanta orodkan uu ahaa mid ka duwan xiisihii iyo xamaasadii ay lahaayeen kal hore iyadoo halkaasi orodyahanka reer Djibouti Moomin Geele si weyn lagu sacabtumayay mar walba oo uu soo maro wadooyinka caasimadda Jamhuuriyadda Djibouti Moomin Geele waa reer Djibouti waxa uu tagay wadanka Ingiriiska 2007 waxaana ku soo laamay dhawaanta dalkan Jamhuuriyadda Djibouti orodyahankaasi reer Djibouti Moomin Geele ayaa waxa uu yahay mid soo celiyay rajadii reer Djibouti haddaba Moomin Geele waxa uu ka warramay dareenkiisa sida uu yahay wallahi aad baan u faraxsanahay because 2 bilood baan Kenya joogay tababar baan ku sameeyay Kenya waxaan u tagayna inaan wax muujiyaan doonayay marka waxaan ka caayay subax kasta 5 subaxnimo 6 subaxnimo kaymo iyo buuro baan dhaxordaayay because maxaan u dhaxordaayay maxaan u joogay Eaten iyo Eldoret waxaan u joogay inaan tababar fiican soo qaato orodkana waan ku fikirayay inaan ku guuleysto ilaahay baa la garab galay waan ku guuleystay aad baan ku faraxsanahay shacabka reer Djibouti si kasta ay garab joogaan ilaa madaxweynaha ilaa ka u yar ilaa ka weyn marka aad baan u faraxsanahay federaasyoonkana aad baan u hambaleynayaa dadkoo dhan aad baan u hambaleynayaa anaguna aad baan ku faraxsanahay guusha maanta wallahi orodku wuxuu ahaa 7 marathon 20 kilometer weeyaan markaan sidaa u eegay ragii anay wala eegeen anay wala sugayeen waan ku bilaabay markaan 5 kilo la joogaba waan ku bilaabay dabadeed 6 kiloga way gaga hadheen ninka Kenyaga soo raacay ninka Kenyaga 10 kilo ila mu gaadhin dabadeed waan sidii baan ku socday insha Allah ilaahayna uu ila garab galay waan ku guuleystay dhukuna oo kulula marka haddana si fiican baan u orday waan ku faraxsan yahay Moomin Geele orodyahankaasi reer Djibouti ee maanta ku guuleystay orodkaasi nus maratonga ee ka dhacay dalkan Jamhuuriyadda Djibouti oo ka hadlayay dareenkiisa calanka Jamhuuriyadda Djibouti ayaa ka muuqday safka hore ee orodkaasi galabta ra'iisul wasaare Dileita Maxamed Dileita orodkaasi hormood ka ahaa ayaa guddoonsiiyay biladda orodkan iyadoo halkaasina ay joogeen sidoo kale xubnaha xiriirka kala duwan ee ciyaaraha orodka gaar ahaan gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha orodka ee dalkan Jamhuuriyadda Djibouti Maxamed Ahmed Sheekho waxa halkaasi uu isaguna joogay xogay dawladda dhalinta iyo isboortiga Dr. Jamac Cilmi Cukiye xubno ka mid ah xukuumadda dalkan Jamhuuriyadda Djibouti sidoo kale halkaasi joogay taliyaha ciidanka ilaalada Jamhuuriga Colonel Maxamed Jamac Ducaali iyadoo orodyahanka Moomin Geele uu yahay orodyahan ka tirsan ciidanka ilaalada Jamhuuriga Moomin Geele waa orodyahankaasi reer Djibouti ee galabta soo celiyay rajadii reer Djibouti